ururka Uhur Development Welfare oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo qaar kamid ah jaaliyadaha Yurub, Canada, Koonfurta Suudaan ayaa deeq raashin ah oo Ciidul Fidri ah waxa ay gaarsiiyeen ilaa iyo 510 qoys kuwaas oo ku kala nool degmooyinka Matabaan, Guriceel, Dhuusamareeb iyo Xarardheere. deeqdan oo ahayd raashin ayaa qoyskiiba waxa uu helay 25 kiilo oo bariis ah. dadka deeqdan loo qaybiyay ayaa isugu jiray naafo, عجز عمالة يوليبا عريان دقمدا متبان ayaa loogu qaybiyay ilaa iyo 50 qoys kuwaas oo ahaa dadkii dardarnaa ee ku noolaa degmada. sidoo kale degmada Guriceel ayaa loogu qaybiyay ku dhawaad 100 ruux ayadoona ay xusid mudan tahay in dadka zakaatul fidriga loogu qaybiyay xarunta loo asteeyay in lagu xanaaneeyo cuuriyaaminta degmada Guriceel. qoysaskii deeqdan loo qaybiyay ayaa si weyn ugu mahad celiyay ururka Uhur iyo waliba jaaliyadaha dalka dibadiisa. إلهي وحنا كبرينا إلهي بقى وحلا برينا إلهي وحنا كبرينا وحي مسلمة وحي مسلمة ودقنا شنو سودي وأنت اللي قد واتشي سي كويسي يكوي سودي أجري حسن الله سي أنا كل عريان تقول عريان علينا واحد دقنا في هذا النص سودي بي ما حد وعلينا دقنا النص جارسيين ورب الله أجري أصحابنا سي ciise xaraash oo deeqdan wakiil ka ahaa ayaa ka warbixiyay deeqdan halka ay ka timid waxa ay dhameed iyo waliba dadka ay u qaybiyaan. deeqdan aan ka qaybinay meeshan waa idad firti waaye waxaan ninka leeyahay qasayday oo talagalay dadkaas oo ku sadaqanay dadkooda walaalahooda. dadkaas waxa la urka waxa la yiraahdaa magaciisa Uhur ayaa la taariikhdaas waxay ka fadhigooda tahay Nairobi. deeqdaas waxay ka soo kala aruuriyeen dad walaalaha oo ugu talagalay in dadkan la soo gaarsiiyo. dadkaas oo ka kala jooga Canada iyo Norway iyo Kenya iyo Koonfurta Suudaan iyo Ingiriiska. dadkan wuxuu ahay tirsigiisa wuxuu ahay 9 qofood waa 9 qofood ayuu ahay lagu siiyay raashin oo qaybtoodu kala ahay 25 kiilo qoftiiba. dad tirsigiisa wuxuu ahay 9 qofood. meeshan kaliya ma ahan hadda waxaan ku qaybnay xaruntii cuuriyaaminta oo lagu talagalay naafada in lagu qoodiyo. meeshan kaliya lagama qaybin waxa laga qaybiyay Matabaan, Dhuusamareeb iyo Guriceel oo hadda aan ku qaybinayno. Axmed Cumar Sheekh Nuur, Cable TV, Guriceel.